halkan waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id anigoo ah suldaankii beesha reer sheekh maxamed bin xaniifa reer sheekh maxamed bin xaniif ana annaaseed loo yaqaano yibraha beesha yibraha shirka aan qabanayaa waxa weeye shirka jaraa'id aan qabanayaa waxaan ka hadlayaa arrintii ahayd nimco yaasiin caraale ku saabsanayd arrintaasoo toddobaadkan dambeba aad iyo aad u soo noqonaysay ahaydna saxaafaddu ay ka hadlisay meel walba halkaasi lagaga hadlaya lagaga dhawaaqayay waxaa jirtay gabadha nimco yaasiin caraale inay tahay gabadh yibira waxa weeye waa yibir weeye waa ina yaasiin caraale walaasheed adeega waa tan ag fadhida iminka dhanaca iga xigta bidixda inantaasi 65 sannadood ayay jirtaa 1954 bay dhalatay intaasoo dhan waxay daynan yaasiin caraale maanta weli waxaan la yaabanoona aad iyo aad u yaabanahay waxaa ka dhigay dee reerka kale reer jaamac baan ahay bay tiri ina jaamac baan ahay bay tiri inantaasina jaamac maaha waa ina yaasiin caraale walaasheedna waa adeega yaasiin caraale waa tan dhinkan iga fadhida inantaasi waxaannu leenahay beesha caalamku amis international maxaan ku dhahdaye xuquuqul insaanka qaranka in la soo farageliya arrintaasi nimankaa sheegtay ee reer xamuud ama sacad muuse ee yidhi gabadhaas annagaa dhallay waxba kama jiraan 65 sannadood xaggay ku maqnaayeen xaggaysay joogeen maxay u sheegan waayeen dooddoodii waxaa ka mid ahayd ay soo jeediyeen tiifeygaan ka aragnay iyada oo maxaan ku dhaha jabuuti tiifeygaannu ka aragnay dee intaa waxay ahayd fannaanad bay ahayd caamahoo la yska yaqaano maslaxadaysa soo taagi jirtay riwaayaday dhigi jirtay maxaa loo sheegi waayey intaasoo dhan u sheegan waayeen ujeeddo weeye arrintaasi waa xaqiraad waa dulan waa xadgudub waxa weeye cirdigayagi iyo nasabkayagi baa meel lagaga dhacaya taana uma dulqaadanayno adduun inaan leenahay arrintaasi ha ogaadaan inaanaan u dulqaadanaynin dulmigaasi inaanaan u dulqaadanaynin hawshaa naloola soo baxay iminka nalagu hayo war waxaa la ysku qabsadaa guryaha dhisan baa la ysku qabsadaa waxyaalo kalaa la ysku qabsadaa laakiin ruux nool oo hadlaya iyaa ina hebel ah waa mid aad iyo aad loola yaaba mucjisooyinka waaweyn ee adduunyada ayay ka mid tahay mucjisada caalamka ayay kow ka noqonaysaa baan u maleeyaa arrintani waa wax lala yaabo weeye aad iyo aad nimankani waa inay isla xishoodaan waa inay isla yaabaan maalin dhaweed shir jaraa'id ay qabteen annagoo horey u sii wada hadallay oo isnidhaha laga qaada dhiigga adeega iyo iyadaba nimcaba waxay haddana shir jaraa'id bay qabteen shirkaa jaraa'id waxay ku caddeeyeen oo ay yidhaahdeen waxaannu oggollahay dhiigga in laga qaado iyo dhaacaankaba dhayneedka la yidhaha in laga qaado iyaannu diyaaru nahay annagaa diyaaru oo taa baadi doonina adeegaannu ka qaadinnaa iyada laga soo qaado meel ha laysugu keeno adduunyada ka mida tukrigaannu raalli ku nahay waxaannu raalli ku nahay london in lagaga qaado maleesiyaannu raalli ku nahay ha keenaan inantaa ayagaa furay kiiskaas ha keenaan inay keenaan baan dooninaay ummadda somalilan u soo bandhigaan ummadda somalilan ay u soo bandhigaan ay keenaan sidaan adeega yaasiin uga keennay sheekh baannu adeege ka keennay waatan dhinacaygay fadhidaa waxaannu rabnaa dhineedka in laga qaado aanu ku kalsoonoon raalli ku nahay haddii ay sidaa u soo diyaargaroobi waayaan go'aanka ay maxkamaduhu ka gaadhaan dee maxkamadaha go'aankaasi u yaallaa go'aankaana maxkamadaha iskale oo insha allahu tacaala keeni doona ciddiina jaraa'idka ka hadli shirka jaraa'id qabatay iyagaannu ka rabnaa cidda ay keeni lahaayeen ee gabadhan ka mas-uulka ah nimco yaasiin caraale cidda ka mas-uula iyagaannu ka rabnaa ha keenaan dowladda horteeda ha keenaan maxkamadaha hortooda ha keenaan hay soo taagto ha naga garbaxaan qoladaas waxaan aad iyo aad iyo aad uga codsanayaa waxgaradka saxaafadda salaadiinta cuqaasha indheergaradka dhammaan jamhuuriyadda somalilan waxaan ka codsanayaa arrintaa inay soo farageliyaan meel kasta ay joogaanba dulmigaa la dhacaya ee nalagu haya inay arkaan waxaan u dulqaadanaynana maaha nin waliba waxaan rabnaa halkiisa inuu arrintaa uu ka soo galo waana u fasaxan yihiin wixii tale iyo tusaale ay ka bixinayaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaa ka hadlaysa adeega Yaasin Araale Axmed. Nimco Yaasin Araale Axmed waa walaashay, hooyada iyo aabahay baa dhalay. weyne Yaasin Araale Axmed reer Sheekh Qadiimiya baanu nahay. adduunka daafiis iyo dacaladiisa waana laga yaqaanaa. reer caana baanu nahay. waa fanaanad caana. waana walaashay. hooyaday waxay dhashay 12 sagaal way dhinteen. sagaalkii markay dhinteen aniga adeega ii bixisay. anaga iyo nimcana wiil baa noo dhaxeeyay. wiilkii wuu dhintay dabeeta nimca dhalatay. waxaan hooyo aniga adeegaad ii bixisay. nimcana maxaad hooyo nimca ugu bixisay? waxa tiri hooyo waan fool badin jiray. markay dhalatay ilaahay baan ugu xamdinaqay. sidaasaan nimca ugu bixiyay. awil baa dabeeta dhashay. anigu waxaan dhashay 51kii. nimcana waxay dhalatay 54kii. awila wuxuu dhashay 1960kii. sheekada hadaba waxay la timi markuu walaalkay awil dhintay 2005tii bishii 6aad ayay arintan la soo baxday. waxaan nimcoy walaalmaad ka joogtay yaa reer Yaasin Araaleenu nahay oo waxa uu la awowgeen Araale waxa loo jiray Araale Yibir. nimcoy reer caana baynu nahay. sumcadaada hadilin gabadh fanaanada baatay. ilaahay baa biliga iyo haybada iyo buruudkaba ku siiyay. sinjigaaga waa la inagu jecel yahay oo maanta reer Sheekh Isxaaq baynu ku dhex jiraa. aad iyo aad bay dadkaas inoo qiimeeyeen. nimco qiimaad leedahay. sumcadaada walaal bedeli in badan baan la taliyay. Hargeysa waxay noo timi markuu Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal dhintay ayay sheekh noogu timi. sheekh markay noogu timi waxay qashay awr iyo 10 neef. waxay tiraahday albaabka iga xidhin. maxay ahay toolay meeytaadkeeni ayaan siirada u dhigaya. xuduntaydii baa taal reer sheekh baan casuumaya. sidaa walaalnimo farxad ku dheehantay bay noogu timi. awrkii bay qashay. dadkii oo dhan bay soo dhaweysay. iyadana si fiican baa dar waxa la isu taagay laamida. sidii madaxweyne baa loo soo dhaweeyay. heesaa loo qaaday. waa la caleema saaray. mudayna la joogtay. madaxdii reer sheekh baa galbisay. cabdi cartan cali dheere markii ay naga tagtay anagoo sidii walaalo way waxay ku noqotay ingiriiskii. mar labaad bay hadana soo noqotay. markii labaad ay soo noqotay ay noo timi gabadhiyo bedelan. na maxaa ku helay? na maxaa kugu dhacay? reer baa igu dhageeyay. waxaan dawlad sheekh baan ku dhalanay. yaa dadkana waxa kala saara. nin walba meel buu deegaan u leeyahay. reer sheekh ayayna kala saarayeen. reerka ku haystay maad keentid. halkan maad keentid nimcayaan ku kala baxnay. maad afar oday uun ka soo kaxaysid. maad halkan keentid. yaa waynu kala baxaynaaye. maya maxay hay tooleeday ka tagi maayee. maxay talway sheegteen aniga habli yareeraabay waxaan ugu tir hablaan dhalay. soo noqodkay soo noqotay bay reerkii u gashay. waan ka daba yimid iyadoo aqalkii khadra daahir ay joogto. fanaaniin badan ay joogaan ayaan aniga kala u nimi. markaan u nimi ayay maxay hay toolay miyabay arkaysaaba. na walaasha adeega halkan joogta. walaasha adeega halkan joogta. dabeeta habeenkii waxaan halkii u hooyanaba fanaaniinteedu iskaga dhex jirtay. dabadeed reer waashmaankii gabadh guriga joogto reerka u ilaalisa ayaana soo dhaweysay. habeenkii halkii baanu seexanay. waagi markuu bariyayna gaari baabay ku dhacday 7dii. gaarigii baan ka soo dejiyay. noo soo walaasha gaariga raacday. markaasaan soo dejiyay. nimcay kaalay wala miyaanad aniga sii sagootiyaynin. miyaanad sii salaamaynin. miyana walaasha ahayn. maxay tolay walaal dadkan isku ab iyo isku isir iyo isku sinji midna nimcay walaala manihina maad ka joogtid. naya adeega bay igu tiri reerkii baa airportka ii taagan. maxaad ka hadlaysaa? salaamu calaykum niyadoon eedhan bay gaarigu ku dhacday. halkii bay gaga dhaqaaqday. annagu guriga khasarad ahayn badbatana ku hadhnay. annagii laba hablood oo reer shiiqo kale iyo anigii inantii la socotay. gaarigii qaaday baa noo yimi. gaarigii baa gurigii Salin Xasan na keenay. 13 sanadood baan anigu waan u samraayay. intaana waan daba socday. baa damaantay ku soo noqon adeega ay sanadkana iman ka dambe iman. nin weyn baa walaalo samirun baan inta ku jiray. cajaladaan qabanay. markay sidaa nooga tagtayna wariye Axmed Aar ayay ka iibsatay. islaamu markaa may wada dhiman way wada noolaayeen. Axmed Aar ayay ka iibsatay.
cajalada reer shiikhoo dhan baa ku jiray islaamihii qabtay ee sacabsaday ayaa ku jiray islaam walba anigu waan waraysto afkaygaan ula tegey bal ka warrama baan nidhi waxay tihi saanta caashe cabdi la yidhaahdaa macaasha sidaa markay hooyadeed u soo dhaftay dumarkii qabtay ayaanu ahayna ma nimcaa maanta tidhi caashi imay dhalin walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcadiim way yaabtay haddana xaabeeyaanu u tagnay xaabeeyey ka waran waxay tihi xaabeeye yasiir dumarkii nimco qabtay ee caashi markay fooranaysay la joogay baanu ahay nimco yaasiin caraale axmed waa la dhalay lama xadin lama helin weyne yaasiin caraale axmed dee reerkanu meelay naga soo raaceen anigu garamaayo haddana waxaan u tagnay oday aabbay wuxuu tumaala birtuu tumi jiray waanu u yeedhnay guduudanow ka warran baanu nidhi wuxuu idhi sagaalka ay caashi dhashay 12 bay dhasho 12 kaba goobtaan jooga nimco yaasiin iyo caashaa dhalay waana la ogay inayna yaasiin caraale axmed tahay waa la ogyahay anigoo magacaygu yahay khadar maxamed cabdi waxaan halkan ku qabanaa shir jarayd oo baryahanba ku jiray baraha bulshada taasi oo baraha bulshada isdhex marayey shirka jarayd wuxuu noqon doonaa insha allah hawsha nimco yaasiin caraale oo ah gabadhayadii haddii aanu ka waranno koleba nimco yaasiin mar hore ayay sheegatay oo 2005 ayay ahayd waqtigay sheegatay balse laakiin markaa danka maanaa lahayn oo keligeed baa hadlaysay waanu isku aamusnay laakiin hawshii iminka intiiba ka dhaaftayoo dee nimankii sheeganayaaba tvga soo istaagay waxa idhi annagaa dhalay tana kicisay maanta annagana kicisayna waa taas nimankaana waxaan ka odhanaya hal mid baan ka odhanaya iyagana waxaan leeyahay reer xaamidow gabadha nimco yaasiin caraale annagaa dhalay waa naag yibrada naag midgaana maaha naag gabooyana maaha waa naag yibrada haddaad leedihiin annagaa dhalay caddaynteedii baa laiga rabaa annaguna caddaynteedii waanu haynaa oo walaasheed oo nalaag fadhida ayaa joogta de waddankuna sharci buu leeyahay sharcigaas aynu la tigsanaynaa kamana hadhayno meel alla meeshaad joogtaan ayaa laydiigu imanayaa DNN-ka ayaan diyaaru nahay habeenii maalin waan taagannahay walaasheedna waanu haynaa maxkamaddana dacwadda annagaa u furaynaba idigu gaadhinba annaga ayaa furayna dacwadda wax ladiga hadhayo reer xaamidow ma aha suldaan ninkan boqorka sheegtay ee boqor badmadow waxaan leenahay boqor badmadow matay boqor been madow baa tahay haddaad realitiga hayso oo runta hayso wixii aad hayso la kaalay maxkamad baa jirta ku dacwo annagu kaaga hadhi mayno bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaad ka hadlaysa layla dubad axmed waxaan ahay naag reer bin xaniifa reer bin xanafa waxaanu nahay quruun yibra'a waxaanu u doodaynaa oonu u taagannahay nimco yaasiin caraale waxaanu ka hadlaynaa nimco yaasiin caraale aniga walaalkay baa qabi jiray anigoo yar bay gurigayaga joogi jirtay anigoo yar ayaan weligayba aan la joogay waxaan leeyahay nimco yaasiin caraale nimanka ku soo ambaday ee sheeganayo maynu dhalin yaasiin caraalaa dhalay waana la yaqaanaa beesha reer shiikhna way istaqaanaa wixii soo lumay iyo wixii ku soo kordhay quruun weliba way og tahay quruun weliba way ka warhaysaa wixii beesha dhex jooga ilmaha ku dhasha waa laga warhayaa ilmaha soo gala waa laga warhayaa ilmaha ku soo kordha waa laga warhayaa war nimco yaasiin caraale waa ku soo ambateen quruntii ay ka dhalatay ayay tahay maxkamadda sharafta leh ee somalilan waxaanu u sheegaynaa in quruntaa nagu soo ambatay waajibaadkeeda la mariyo oo nalaga qabto oo loo soo wada jeesto oo diintu ay u soo jeesato iyo cuqaashu oo ay u soo jeestaan culimmadu u soo jeestaan oo annaga nala maryo xaqaanu leenahay waxaanu haynaa adeega yaasiin caraale waxaa laga qaadayaa dhiiggii dhalashada ahaa ee runta ahaa waxaanu doonaynaa nimco yaasiin halkay ka soo jeeg lafaheeda in la helo inaanay nagu soo amban inay sidaa ku tanaasilaan in dawladdu ay nimankaa noo soo qabato oo xaqaanu leenahay nala mariyo ayaanu somalilan ka doonaynaa